فيلمكان waxaa lagu tarjumay astaan films maxaa kugu dhacay walaal gees ugu leexan bal hoonka sidaas dartiis ayaan u yeerinayaa seed uu isiin laayahay ooya mar labaad hoonka u yeeri أوفو أذيك ميانا أذيك أنا تهرنتي موجن أذيك أنا تدعو له دروبك مديه لين بهونك ويري إيه وحندي لها قاريك تصعد فينك
libaaxa markuu wax ugaarsanaya sidii dooliga kale maahan. هاي التفريع سحبت زميلي انت توقع محل عليك معاك في ريس قراعنا هذا مو حرت ساينا يقول دشت ردرد جوهر برتاب سين او ددك بحثت ku diiri jiray anigana tira laba jeer ayaad isoo qabatay laakiin maxay u qaatay xabsiga farajocis ayaan ugu soo baxayba aniga hal mid ma ku sheega hadda ay qabtidna isla daqiiqadiiba xabsiga banaanka ayaan ka imaanayaa abu cadda hal mar gadaashaada dhugo hal cadow iyo hal xabad waxay isu jiraan sankii fruurta intuu dhaxaysa faylka halkaan uu ku xiran yahay waa ku salaame tankii waa maasantahay bravo adigana waa ku salaame taliya kaale maanta maxaa dhacay maxaa ii wadi weyse mishinka adiga aa fulinaysa aniga dhinacayga ayaan ka fulin lahay muddo dheer ayaa iigu dambeysay inaan wax xusulay maanta xiisa u qabay seediyaashaadana dhinacayga ayaan ka garaaci lahaa jaanis ayaa igabsiisay seediyaal ah maya tuugadaan ka waday haddeer dibaaliga xiga isku diyaari xalwadan waan soo diyaarinayaa xalwadee micnahayga xafiiskaana laga wacayaa si noola siiya xalwo inikeen soo soco ma soo geli karaa askari waddooyin kale ayaa jira oo badan oo tuugada lagu soo qaawan karo oon dil ahayn askariga waxaa looga baahan yahay mas-uuliyad inuu iska saaro xilka uu asaga wado khaasatan adiga maxaa yeelay askartoo dhan indhaha ayay kugu wada haayaan adiga maxaa kugu kalifayna in aad gondhaalihi ku dhufatid xabadda ii sheeg maxaa kugu kalifay dooli xun markaad dilayso amar uma baahna inaad dadka ka qaadato iga bax albaabka gad awdan ku dhahay
igraal noqo يا igraal noqono rudra aniga xafiiska lan maamulkoogu ahay guriga adaa igu taliimaho waan ku baryaa igraal noqo waan ogahay aniga xafiiska si kulul ayaan kugula hadlay soo maahan laakiin hadalkay kulul adiga dantaada ayuu ahaa adiga kaale in aad xabad wax ku dhufato oo keliya xal ma noqoto soo ma ogidne dadka noocaas oo kale xabadda luuqadeeda ayay fahmaan laakiin waxaad u malaysaa xabadahaas codkooda rudrigayga in uu ku dhex dhumay qolka hala baaro meeshaan oo dhan alaabaha in ay yaalyaalaan waa laga fiican yahay waaya marwo waardiyaha meeshaanna hala waraysto annaga xalay oo dhan halkan ayaan joognay marwaadhin ayaa dhahday ordas ka baxa oo cunto soo cuna kadibna waan soo laabannay markaan imaaninna xaaladdan ayaan la kulannay taliya aniga siday wax u dhaceen ma ogi iga raalli noqo waa gartay meydka loo diray qaybta baaritaanka waayaa marwo goormee gabadhaada kuugu dambaysay ii sheeg bal xalay ilaa 4 saac ay soo wacda gabadheeda waqtigaasna aaday u faraxsaneed gabartay waxaa ma suubi karto macquul maa gabartay inay isdisho baaritaanka ay booliska sameeyeen waxay caddaynaysaa gabdhaha iyaga in ay isdileen laakiin su-aasha taagana waxay tahay sababtay gabdhaha isku dileen maxay tahayna marwo seekaa noqotay gabadhee ma isdili karto waxaan ku dhahay gabadhee ma isdili karto hadeertaan waad iska bixi kartaan idinka haye laakiinse waxaad ogaataan baaritaanka booliska intay ku jiraan idinka waa nayna wacayaa mar walba oo waraysi ayaan inaga qaadaya hani may marwo malab maa sokor waaye hani sii haye mudane orod iyaga dhan hadalladooda ka qor okay na keena idinkana mudane arrintan kuleej ka dhacda dad wasiiradaytiin adinka maxaad ka leedihiinna ii sheega run ahaantii arrintan unuka aad iyo aadan ugu xunnahay madaxda sarena arrintan waa u gudbina maka aamusin wax walboo meesha ka dhacayna unuka waa u sheegnay halaalaan ugu sheegnay wax aan ka qarina ma lahan haddii arrintu ay sidaas tahay kuraasta maxaad ugu fadhidaan haddaadna amnigaba aadna ilaali karina wasiirada looma baahna inay kuraas sii fadhiyaan haddayna amniga ilaali karin run ahaantii adinka saxaafadiin waxaa loo baahan yahay dhibaatada inaad yaraysin inaad warka sii buubuunisiin ma loo baahna ala yareeyo kursiga waxaad ugu fadhisaan shacabka ammaankiisa inaad ammaanka ilaalisaana loo baahan yahay haye ana shiraan u socdaa waa daahsanahay waraysigaa laasas ku egyahay axmedloof soco adiin ani fikradan waxaan qabaa arrintan inaan la yaraysan sharafta koolajka waa sharafteenna baaritaan dheer waa in la sameeyaa fikradayda ani taas ayay ku salaysan tahay waa mahadsantiin waa mahadsantiin barfisor korkiis sax waay arkaasana loo maaha
marwo riboodkoo dhammaystiran كان meydka markaan baaran dhiigiga qaarna way isleeyihiin qaarna isma laha marwo marka sidaasaan kuu sheegayaa يا sheekadana way isku qasantahay qasii labanay waay يا adiga ma hubtaa dhigaga iimaydka inaysan isla lahayn ii sheeg marwo see kaa noqotay ma hubtaana hadal miya aniga waxaan sheego way sheegan yihiin arrintaanna arrin ayaa ku hoos doogan wax badan ayaa soo socda marka runteeda waay waxa ku qasan waxay yihiin mataqaanaa jalaabiye ma fahantay marwo run waay jalaabi ah haa iga dhadhami maxaa dhacay يا wanaagsan oo wacan fadhiista ay waa bilaaban karnaa soo hadla mudane arrinta kolleejka ka dhacda markino iyo magaalada qasan arrintaasi maxaa la dhihi karaa noo sheegba run ahaantii annaga shacabkeena waa jecelnahay dhibaato inay soo gaartana diyaar uma nihin qaska iyo foodada magaalada ka socda waxaan raalli ka nahay maahan mar walbo run ahaantii shacabkeena annaga garab ayna siiyeen ayay dowladdeena ku taagan tahay ee aana horumar ku gaartay run ahaantii waa ka xunnahay saddexda gabdho dhibaatada loo geystay baaritaan culusna waa lagu sameynayaa saxaafaddiinana waxaa loo baahan yahay dadka wanaag in aad dhegahooda ku shubtaan mooye in aad xumaan ku shubtaan maba loo baahnaba shacabka hala dejiyo annaga keliya dama dejin karno adinka nala dejiya annaga cid bini aadana dhibaato u rabna ma jirto mudana dalka waxaa ka dhacay dhibaato diil kufsi iyo idhaacintaba sidaas ay taana markasta waxaa dhahdaan wax ayaan ka qabanaa haddana wax kama qabatan eedanihiina ayaa ka taxadirtaan makula taha marka kalsooni hey yaray iyo maxay taa waxaa ku hadlaysid war saxaafaddiina haddii aad dhahdaan shacabka ma taxadiraysa taas micnaheedu waxay tahay dowladda shacabka inaysan ka fikiraynin war annagash har iyo habeen waxaan u taagannahay shacabka in aan ka farxino dhibaatana uma horseedayno oo waan ka taxadirayna waana ka fikiraynaa meedihiina ma loo baahno maala yacni iyo waxaan loo joogin in aad dadka adinka u baahisaan waxyaabaha saxun oo kale inaad baahisayn lama baahan ma fahanteen waan ogahay hadda hadal haddii aan ku dhaho afkayga qoyan camal u hadlaysaa hadda adiga soo hadal bal wax noo sheeg waxaad adiga noo sheegtid ayaan anagana ku dhaqaaqayna waan samaynaynaa anigoo ku hadlaya afka shacabka iyo afka miidiyahaba waxaan codsanahay isbitore rudla bartaasiin in lagu wareejiyo kiiska midaas ayaan codsan lahayn waanu ogolnahay waan ku wareejinay askari daacad ah oo dalkiisa iyo dadkiisa jecel runtii annagana waan cisaynaynaa waana karaamaynaynaa laakiin askari u taagan dadka in uu dhibaato u geysto kiisas been ah dusha uu ka saaro masaakiinta dulmiya dadka maalaa yacni ku dilo in ninkaas dadka ay sharfaan weliba dowladdana ay mutaysiiso garaadda in la siiyo kadibna loo sacbiyo runaantii annaga waan ka soo horjeednaa middaas mana aqbali karno askari u taagan shacabkeena in uu dhibaateeyo annaga waan ka soo horjeednaa ma aqbali karno wax walboo dhaco bes sham haa taliya gaashaanlaha uu sheeg isbitaal rudra kiiskan asaga ayaa loo dhiibay hana ku wareejiyo anigana waan u amray fasax waaye ha loo xil saaro waayahay bes adinkaa mudan waad ducaysantihiin noolaada atiti kiiskan dadka isdilayo isdil ma ahan middaas sideed ku dhihi kartaa baaritaanka meesha laga sameeyey iyo kiiska sida loo sheegayo isma lahan
afar meyd iyo 5 dhiig ayaa meesha laga helay marka waa iska cadaa inaysan isdil ahayn oo dadka la dilay rutra garab ayaan kaaga baahanahay adiga waad la socotaa qaabkan aniga u shaqeeyo adiga isma bedelaysid qaabka aad adiga u shaqaysid waxayr xataa isku day inaad iska bedeshid aniga dartay weliba oon ku baryayaa aniga mar walba in adiga gobol lagu bedelo dalhi bombay karkata janaay marba meel in lagu tuuro marabo aniga dartay u yeel oon ku baryaa aniga dartee adiga dartaa in aan u sameeya aan isku dayayaa maya sheekadani ma ahan mid macquul ah waxaan rabaa alaabihii qolka laga arooriyay inaan arko ii soo saara waa lagu soo saaraa waraa soo bix hay taliya waa kuwan taliya waxaan u baahanahay warbixinta simkaarkan inta uu wacay iyo wixii soo wacay ii soo saara bangiga intaad tagto waxaa soo ogaataa lacagta 500,000 oo rubis qofka soo qaaday iyo magaca ku soo qaaday dhammaan hostelkan gabdhaha dhigtay kulajka seexda macluumaadkoodan u baahanahay siddeetan iyo kow siddeetan iyo labo siddeetan iyo saddex halo siddeetan iyo lix runa taleefonka waa kuu galay galab wanaagsan mudane dhowbay dhaxyare kiiskan wuu adag yahay sidaas daraaddeed ayaan taleefonka ugu soo diray waxaan rabaa arrintan oo 3 gabdhood in la dabagalo runta laga soo saaro kiiskan in la soo afjaro ayaan rabaa aniga mudane annaga haddii aan boolisna hawsheena waan wadanaa waana caddayn doonaa wax walboo jiro haddii aan nahay wasiiro ama shacab mar walba waxaan hoos tagnaa booliska haye sidaas daraaddeed annaga waxaan rabnaa jiljilaac iyo waxyaabahaas oo dhan in nalaga dhaafo oo xaqiiqda dhabta ah naloo keeno askarta kula shaqaynaysa waa in aad u digtaa adiga looma baahno xuduudda ay leeyihiin looma baahno in ay ka soo tallaabaan sharci oo keliya waa in ay ku dhaqmaan waay mudane meesha ka sii wada kabtan baara 87 89 oon ku salaama maamule waxaan ahay gaashaan laadiid yaasiin waxaan u baahnaa warbixinta ku qoran waa lagu siihaa diyaar waa soo soco soo dhowow soo socaya akoonkan lambarka ku qoran iyaa iskalaya feeri dhaqso asimkaarka magac ku qoran ka jandiifi wax adreeska maylajitay batrawaas wax xaafadda 7 okay wicitaanka taleefonkan u baahanahay
magaciisa markaan eegay waa ramesh dubey waa fiicanta adreeska noo sheeg waan kaa sareeyaa ma ogido been boodi maxaad iga sareydaa hay u sheeg waxuu naga sarreeya male iska wadi aqwafaanahay mudane adreeska ayaan u baahanahay mar waxa soo wacna bar badan 971943 waxaa iskale nin la yiraahdo ramesh dubey 777 isna ka soo wacay wicitaanka ugu dambeeya aan baahanahay 8123021115 waay kanjan devian iskale saaxiibay musalsalka waa maqsad jooji saaxiib halkan ii jooji gabdho iga raal noqda wada in salaame 12 intuu ku yaala xaafadaas ayaan u baahnaay xakaas ayuu ku yaalaa soco mahadsanadiin thank you waan igu daray dhaqaaji saaxiib gaariga bidixee dhahday haa rudra labadan lambar muhiim waayo qora adiga bal guriga waa kan lambarkiina waa kana aniga ii baneey ya walaashay ramesh dubey gurigiis soo meeshan maaha meeshaan ma degano run sheegaya hay mujid waxba qaldan haysanaa lambarka bangiga nagala soo siiyey waa lambarkan maxaa dhacay okay okaadi anaa weydiinaya meeqa sanaad meeshan degan tahayna 10 sano ah salaxow warkaalay ciwaan beena caddeen beena wax dhan waa wada been waayay adiga bangiga ku laabo bangiga ku laaba maxaa dhacayna dhib miyaa jiro maya taliye waayahay howshaad qabso okay taliye waa amar bangi iyo hadda haddaan dib u baarayaa mudane okay dhib male okay markii ugu dambaysay la isticmaalay goormay ahayd waxay ahayd maalin isniin ah 5tii galabnimo ayaa sundaa sawir lacag lagala baxay maalinta isniinta 5ta galabnimo xilliguu dilka dhaca soo ma ahayn waxaan rabaa cc camerada waxay duubtay laakiin mudane cc camerada waxaa war waxaan ku yidhi cc camerada filmaantii duubtaan rabaa now may iska fariiso muuqaalada ma kuwaanbaa ahaa tali okay halkan ku celi bal muuqaalkan shatamiya haa taliya ninkan sawirkiisa waan u baahanahay sawiradiisa ii soo daabac taliye ninkan bandhiyo u egyahabe si fiican u fiiri haa bandhay wuu u egyahay no adiga ma taqaanaane haa waan aqaanaa mital ayuu jaajusuyaa wararka ayuu u geeyaa filimkan waxaa lagu tarjumay astaan hayesanka ay ducee hortii ducee waa duceysan tahay booliska waxay wateen ninkii la yidhaahda bandey arrintaas waxaan rabaa inaad adiga soo ogaato kadibna telefoonkaad iga soo wacdo adiga ayaan ku xil saaray si degdeg arrintaas u soo ogow waaya wasiir okay kadibna isoo wacya marxaba hay iloowin soo bixiya shaxshaxata kaarka bangiga ee ramesh dubey maxaa adiga xaggaaga keenay ramesh dubey yaanyame ayuu yahay waaba midda aniga aan ku weydiinayo maxaad isku tihiin adiga asaga yaa awood aad kaarkiisa lacag kala bixaysa ku siiye kaarkiisa lacag kala bixista ramesh yaa waay beesada aan kala baxana maxaa waay aqe aad miska baashaalusa aan waxas wax ma ka ogibe waxaad ma iska sheegay ani laba kaar la leeyahay kaarna waa kii aqoonsiga kaarna kii leesinka waay way jiraan kaarar kale aan dalba aniga laakiin dowladda waa haysamaa sawiradan ku dalbay marwa maxaa kugu dhacay walaalkii bandi ayaa dabta inaad ka xaysatay caadi iska dhig maxaa kugu dhacay adiga walaalkii bablu iyo batu aha meesha shaxaad la liiweydiiya wax kale ma liikeeni walaal maanta waa baxsanaysaa macnaa anaa kusii daynayo waraaqadan wax walbay ku qorayin oo saxiixa wayna saxan yihiin iska fiiriya maxaa sugaysaa hay walaal waa baxayn ana keen soo alla jawaay waa socda mac salaamaya
warhaye bande waxaan maqlaa askarta inay ku kaxaysteen haye waa ay kaxaystay mooye maxay iga qaadayaan gabadhaas annaga way nagu dhumaysaa waranta war dad adinkoo kale nin ku dhex jiro cid bini aadan wax ka qaadaysa ma leh annaga saldhigga booliska waa galnaa waa goob aan ku baashaalno waa caadi xasabo haddii tii waa maxay waxa dhacaya inaad baaritaan ku mashquulshiso lama moodo waxa waay gabdhihii hostelka dhegayso sharafta booliska wax meel uga dhacaya inaad qabataan waa sharci darro maya taliya dhegayso midaan kuu sheegayaa kiiskaasi wuxuu ahaa isdil marka meeshaan inaad ku afjarta ayaan jeclaa laakiin taliya maqali dhegaysa gaashaanle meeshaan taliya ma taalo qof gaashaanla ayaa tahay shaqaan lagu dirsan inaad aadid waa sharci darro marka waxaan kaa doonayaa kiiskan in ay isdileen gabdhahaas aad ka soo qaadaysa kiiskan waa inaad miiskan aad ka soo xaadiridaa haddaad doonayso wax badan oo aad ku mashquushid anaa ku haya kowdhe kiisas badanaa ku sugaya soco waya taliya aniga meesha waxaan ka ahay ayaanba kasi la ahaybo waan bala yaabana stajiga aniga dhulkiisa maan xaaqaana kiis aniga aan u jeedo oo dil ah ayaa nin aan ku soo qaban isla halka habeen gudaheedan oo naga sii daayay war annaga markaynan tababarayo 3 ayaana nagu waaniyaa xumaanta ha arkina xumaanta ha maqlina xumaanta ka hortaga naga tag dheh atiitii moogtahay booliska sharci iyo qaanuun inay leeyihiin waxaana loo baahan yahay in aan raacno iyo in aan la dagaalano labadoodaba si aan ula dagaalno looma baahno xere in lagu xareeyo oo dagaalkaas noola soo tababaro ee qaybtiina ayaana barayso maxaa sameeyahay taliyaha wuxuu yidhi kiiskan waa kiis isdil ah feelkiisa soo xir kadibna miiska ii soo saar marka maxaa qaban karaa aniga haddii aad wax samaynayso hal mid samee riboodka qaad taliyaha miiskiisa waa inaad gacantaada ku saartaa maxaa samayn lahaa waaba saarayaa ilan sheekada wayba dhammaatee wax dhammaaday ma jiraan hadday bilow tahay rudra 2 lambar oo muhiima qorabal markaad lambarka ii sheegtay kadib aniga waxaan sameeyey tixraac waxaana ku gaaray lambarkaas gabar la yidhaahdo aronika oo weliba isbitaalka ku jirta mudane gabadhan iyadoo suxsanayaan arkay madaxan dhaawac xun ayaa kaga yaala moobeelkan ayaana boorsadeeda ka helnay ilaa haddana cidna umaana sheegin way fiican tahay kolleyba aniga garamaayo laakiin waxay la tahay waddada ugu dambaysa aan haysano teeda kale arrintan aniga keliya ogaa hadda adigan kula wadaagay labadan inay noogu koobnaato ayaan kaa doonayaa haddii ay macquul tahay waxaan kaa doonayaa askartaada kuwa aad ku kalsoon tahay 2 ilaa 3 ilaa 4 inaad u dirto isbitaalka si ay gabadhaas ammaankeeda u sugaan okay shaygu kaa qabobay cab saxaafadiina sidaan hore idinkugu ballan qaadnayba waxaan idin dhahnay arrinta dilka wax baan ka qabanaynaa waxaan idin dhahnay baaritaanka hore aan samaynay baaritaan ka khatarsan oo ka culus ayaan samaynaynaa runtii baaritaan dheer kadib booliska waxay soo saareen kiiskan in uu yahay kiis isdil ah cidna bini'aadan aysan ka dambeynin booliskana waa ay ku guulayseen shaqadii ay qabanayeen run ahaantii waa intaas annaga haddii aan wasiirnahay ma jeclin in nala ajaafaysto amba annagana la xumeeyo shacabkana waxaan jecelnaa har iyo habeen in aan u shaqayna in dhibaato loo geystana waan ka soo horjeednaa sham runtii wasiir haddii aan ahay aniga har iyo habeen waxaan u shaqaynayaa aniga in dadka dhibaatada aan ka dheereeyo in ay farxad ku seexdaan ayaan jeclahay askarigii rudraa dadkan ay jecel yihiin laga dambeeyo mar walba la ammaano hadda kadib fasax gacmihiisa laakiin mudane fasax gacmihiisa maxaa u dhahdayna maxaan dhihi lahay marka hore isku mid le waa waryaa hab maya yaa lee sacbin aniga sacabka ma xiiseeya aniga rudraa loo sacbiyo maxaa yeele asagaa askari wanaagsanaa rudraa u sacbiya waa salaamantihiin waa ducaysantihiin farxad ku noolaada caawa markaan guriga imaadan kuu sheegaya okay
halo rudra waan ku salaam waxa kula hadlayo waa barma aan mudane rudra ma waa dulaali gacyariis dulaali ah ha waasiye oo telefonkan kiisi ma soma ha waa telefonkiisi waayay adiga maxaa ku dhiibay telefon dadweynaha qabatay awood ku sii adiga ma shoonaysid war u dhiib asiga war anaa u dhiibay maxaa la qeyle يا أخي إيش خبي يا أخي نكان وانا والم به دي كرمو خبي يا سي مركل أنكو سواعيا وامحي هذا الذي ها سو هذا رودرا ومدن برما يا أخي تلافك غفل بقى معودي تادي شمي هذه بوستولا أتسمى ستي معنا قف تلافك كو غبته تاسدان كيقود بان adiga waxa way mataqaana maadaama maxaa warki dadaal leh ha dadaal badan aad sameeyday runtii aniga iyo wasiirro kale dawladda sida badan waan kugu taageersanahay garabana ku siinay ma sanad aad baad u mahadsantahay fiiri adiga waan kula hadla waan ku sharfooyaa adigana hadal iyo sida camal aad leedahay mahadsanid alxaasil inaad dadaasho ayaa loo baahan dadaalkaaga si laba jibaar annagana hiil iyo hoo ayaan garabkaaga la taaganaa وكساعدينا وليبه अरे चोरी करके ले गो मुआ सारा प्योर इमोशन एक कड़ी में और चढ़ गई हुआ गजब प्रमोशन बाजरे पियानो मन में झूमर लहरिया तन में झोंका लगा जो बन में नैनों से मारे सैया बाबा बाजरे पियानो मन में झूमर लहरिया तन में झोंका लगा जो बन में नैनों से मारे सैया मैं हूँ छुरी दो धारी मीठी हूँ थोड़ी खारी सैया से करके यारी मैं तो मर गईया adiga ayaa waxay dhahday kiiskan xal ayaa loo helaaya aniga waan huwa gabadheeda ismaysan dilin waa la dila waa ku baryaa xal noo raadi isdajiya horta idinka sida aad aaminsan tihiin ayaan anagaba aaminsannahay waxaan aaminsannahay gabdhahaas inaysan isdilin oo la dilay marka xal ayaan raadinaynaa waa hubaal arrintan inaan ka salgaari doonno waxaan hubaa arrintan inay ka dambeeyaan dad waaweyn oo magac leh annagana kama rajo dhigayne idinkuna ha rajo dhigina si aan arrintan ugu salgaarno haddaydan idinka ka rajo dhigin arrinta waan ka salgaari karnaa anaga mar walba garabkiina ayaa nahay waan ii baryaynaa xal soo gaara waad mahadsantihiin adinkaa mudan run ahaantii dadaal dheer annaga aan soo samaynay kadib halkan ayaan ku imaanay adinkana igama liidatiin waa soo dadaasheen dadaalkiina dartiisa ayaan aniga maanta heerkan ku soo gaaray
awooddeena oo iskaashatay waxay kasabtay inaan annaga meeshan aan xadidno run ahaantii aniga waan ku faraxsanahay wax walbo adinka aad leedihiinna aniga idinkama xaqiraayo fadhigiina ayuu idinkugu imaanaya hadda aniga shir ayaan leeyahay waqtigana waa igu socdaa mar kale ayaan kulmaynaa waa iska bixi kartiin fasaxaatiin aawa shaam maxaa kaloo la saxiixa keen waa kanaa mudane mudane mar labaad akhri mar labaad akhri ah maxaa dhacay adiga ma akhrin kartid miya aawa shahaadadaada ma shahaado ma soo qaadanin beersada macna darba iga dhammaynaysaa waryaha adigaa lagaa rabaa inaad akhrisid ee aniga ma ahan wax matarayo shahaadaan soo qaataa igu imaanaya miya warbaxa waryaha taltar iyo turxiin baa meesha lagugu keenay waryaha waa ku salaamay waa kaa qaada weji xume ma xusuustaa gabdhihii kollejka xabad ka mid ah ayaa waxaa soo helay isbitoorii jinniga qabay haye gabadhaas hadda isbitaalkay ku jirtaa haddii afkeeday kala qaadana waa ogtahay natiijada ka soo baxaysa meeshaas hallow mudane dhiiggeed adiga keentay iyo gabadhan dhiiggeeda way islahaadeen waan soo socdaa waad mahadsan tahay taliye haye maxaa cusub wax cusub ma hayo aanan ahayn ninkaa ilaa iyo saaka meesha ayuu warwareegayaa yaa ku soo diray hadal dhaqso xaggeen ka helayaa waryaa hadal ayaan ku yidhi xaggeen ka helayaa adigan kula hadlayaa dhaqso 15aad nacas
orodoo gabadha fiiri iga tag inaan kufti umleeyahay magaciisu waa shankar shankarkaas aan kuu sheegayna wuxuu dabadhelif u yahay wasiirka xun ee madax kuuska ah baandhayna asaga ayaa saldhigga ka sii daayay maalinkii la daayay ilaa iyo haddana gacanta laguma hayo baandhay midaasna waan la yaabanahay annagoon caddayn haynin waxba ma samayn karna maxaan samaynaa marka adidi waxaad ogaataa dilka sidiisaba inuu yahay sidii kabadhiigii oo kale kabadhiigana markaad ku raaxaysta ayuu kuu baxayaa laakiin waxaad ogaataa ciyaarta kabadhiiga qofka kale asagoo hortaagan ayuu karaynayaa waana qasab midaas gaashaan la sare soo dhawow soo dhawow soo dhawow runtii waa ku salaam waxaa tahay nin sharciga oo dhan oo ka dambeeyo aniga xitaa waa kaa dambeeyaa mahadsan idaan ku dhac maxaa ku helay waad u jeedaaye maxaan u jeedaa macawiis iyo kooyaas ku soo xiratee maxaad iga fiirinaysaa ii xirheeno haddii aan saan ku socdo anigoo shir u socdo waan dhacayaa haddii aan dhacana dowladda dhan way dhacaysaa adiga midaas ma ku wanaagsan tahayna ii sheeg waa maya marka ii xir haddii aad ii xirto ogow kursigaaga wuu ku badbaadayaa haddii kale out dhaqsahee gaashaan la sare shaqadaada gudo si kursigaaga uu kugu badbaado haa dadaal nin wanaagsan ayaa tahay kursiyo nacallaa kuu yaal khatar iga dheh intaanba haddii aad samaysay maxaa sugaysaa xoogaa nadiifina lagaa rabaa mog tahay ii casay safarletigaa ku dhalaale abuu runtii waad ka baxsatay casay ma ahaan jirtay very good khatar ayaa tahay brow waad ducaysan tahay maanta adiga akhbaaraadka ma daawatay mise ma daawanin ii sheeg bal ma daawanin dhugo hadda maanta waxaa magaalada ka dhacday fadeexad aad u weyn sarkaal ciidanka booliska ka tirsan ayaa waxaa la arkay asigoo wasiirka kobaha u casaynaya feribal waa wax iska yar saxaafaddana wax weyn ayay ka dhigayaan waa bahdilaad iska yar anigana ma doonayo gabadhayda bahdilaadaasoo kale in ay kugu dhacdo abadan aniga maxaan sameeyey baaris oo keliya aan sameeyey maya annaga haddii aadna ixtiraamto ogow adigana sharaf ayaan kuu haynaynaa laakiin haddii filimkan waxaa lagu tarjumay astaan filmis midaasna waa dhibkaaga marka gacmahaaga inay dheeraadaan looma baahno gabar yariis ayaa tahay ha isbahdilin marka ma fahanta gabadhayda quruxda badan waan taga aniga aditi
maxaa kugu dhacay waxba iguma dhacin waaye maxay tahay xanaaqan kaa muuqdo yaqe waxbaan ku dhahno hay dolari ها waa ku waan kaa qaaday faylkaana laysoo dhiibay marwadaa rabay in aanu dhiibin okay waad mahadsan tahay habeen wanaagsan habeen wanaagsan feelkan ayaa dolari kuu keenay xagga iska dhig yaaqe maxaa kugu dhaca wax ma ii sheegaysid ya aniga maanta wasiirka ayaa ii wacay hadda isaga ayaan ka socdaa wasiirka muxuu kaa raba ku dhahayay muxuu i dhihi lahayne wasaqa xunka ah aniguba ii cagajuglaynaa ka waran cagajuglayn ah cagajuglayn noocay ah wuxuu ogaadaa isaga ilaa hadda kiiska baaritaankiisa inaan ku jirno inuu idilaha ayuu igu cagajugleeyay هلو شنكر أيانا صور دقس عيدا صور قريقا نوبا ما ودقسا طريقها قريقيس أيانا صور وين دقسا أنكو تقنا ولا صورتها كم هاي اسكيل علي كلب يو هيريد يا غير
aamus waryaha aad baad u qaylo dheer tahay sidii eegii kale eegi markuu qayleen libax ma gaaro maxay kula noqotay intaad guriga igu timaad inaad dili kartidaa ya waqtigaaga weli waxbaa ka dhiman bes waydin baryaa wax yar aniga waxaanba la yaabanaaba siyaasadda meeshaan ka jirta maxaa waaye ninka wasiirka oo nin sargaal ciidanka booliska ah ku qasbaya inuu kabiisa caseeyo kadibna xarigga uu xiro ani siyaasaddaas midaan fahmi kara maaha waxaan kaloo la yaabanahay nin sargaala oo ciidanka booliska ayaa gurigiisa si toos dad burcad ay ugu weerareen dowladduna ma ayna ka hadlin wasiiradani maxay kuraas ugu fadhiyaan anigu waan fahmi lahaa waxaa kaloo sii jira ciidan boolisa ayaa lagu laayay waddooyinka dowladduna ma ayna ka hadlin wasiirkan barsaada ku sheegaysaan wasiir ma waa doqon xaggeed u socotaa taliska ciidanka booliska ayaanu socdaa wasiirkana wuu imaanayaa kadibna hani iyo gabadhi kaloo ciidankoo dhimanayeen meydkooda baaris ayaa loo diray rudra wax walba way hagaagayaan adiga isdeji soo bax aniga kusii geenayo inakeen hay galabtaan kulmeynaa aditi aha haddii aan ugu talagali lahaa isla maanta waan dili karay yaa wayne shankar adiga rudra guriga wasiirkaan aaday yaqi say kaa noqotay laakiin ma samaynin inaan dili waayo uma dhaafin ee waxaan u dhaafay adiga dartaada maxaa yeele haddii aan dili lahaa waad iga xanaaqi lahayd waan kaasii tegey istaag haa hallow satutaa soo hadal gabadha miyirku u soo laabtay waa arrin wanaagsan kasii taxadir waan ku imaanayaa waayahay sato ila soo hadashay waxay ii sheegtay gabadh isbitaalka ku jirtay inay soo naxday waa arrin wanaagsan haddii wax soo kordhaan ila soo socodsii okay bye waan baxay inaad cabsato looma baahna maxaa yeele waxaad ku jirtaa gurigayga aniga waxaa la yidhahdaa rudra waxaan ahay boolis adigoo raalli ama ii sheegi kartaa maalinkaas waxa kugu dhacay
gaariga wasiirka halkan ayuu ka soo baxaya ilaa shantii nagar ayuu imaanaya ilaa shantii nagarna mushraa adiga ayaa ku qoran waayahay intaraa nagar markii uu imaadana mudana baandhey adiga ayaa ku qoran waayahay marwo magacayga waa buujaa ganjel deefi ayaa i dhashay waxaana ka mid ahaa gabdhaha hostelka kaali soo fariiso maalintaas maxaa dhacay waxaanoo dhan waxay bilaabeen maalin xafladda ay kolleejka ka jirtay martida sharafta leh ee xalfaddan ka soo qayb gashay aniga aad ayaan ugu mahadcelinayaa waxaan kaloo u mahadcelinayaa wasiirkeena sharafta leh oo maanta xalfaddan quruxda badan nagala soo qayb galay waxaana rabaa aniga hadda meeshaan inaan ugu waco oo aan dhaho ardaydaada kaale u ducee waa salaamantihiin runtii aad iyo aad ayaan u faraxsanahay maanta intaan oo mujtamaca in aan soo hor istaago runtii dadka meeshaan iskugu imaaday maanta aad bay u qurux badan yihiin anigana waan ku faraxsanahay waana soo dhaweynaya waa idin taageersanahay mustaqbalkana waxaan rajaynayaa sidaan oo kale waddankeena in aad noogu quruxsan xafladdan runtii gabadha soo qabanqaabisay isku soo dabaruday magaceeda haddii aan idin sheego waa sanju runtii ma ammaani kara ammaanteeda afkayga maba ka daalayaba qurux qiimo wanaag markaan iyadoo kale arko runtii anigoo wasiir xataa waan isdhiibaa maxaa yeele waa gabar dhammaystiran runtii aniga wax walbaan haysta waan buu awoodaa inaan siiyo maxaa yeele way dhammaystiran tahay ma cabsatayna aniga ma adiga kaa cabsanayana dhaara abay markaan oo kale aniga nooc kalaa noqonaa mogtahay kaalehe waxaan rabaa inaan kaa codsado ma ii samaynaysaa waqtigan oo kale ma wax layska codsada yaaqay maxaa waaye ii sheeg basada ay cuncunte saa ii shuminaysaa dhagaa duf iga soo baxay jacalka ma xanaaqdayne maya waye ii sheeg maxaa waaye maxaa iga codsanaya hay waxaan kaa codsado ii samayna soo maha laba tigid oo keliya ayaan kaa rabaa aniga uf waaye hal tikid waa kanaa qabso aniga kursiga hadda leen ku fadhiista ma ogtaa weli meel sare ma gaarin yaaqay sidaas ma ahan aniga mar walba aan wax kaa codsado adiga sidaan ayaad ii meermeerisaa anigana ay hadda laakiin waqtigan oo kale waad ogtahay aniga meel kasta oon joogo howl kastoona haddaad ii wacdo agtaada ayaan imaadaa wax marmarsiyo aan kuuma sameeyo macaankayga waad ogtahay inaan ku jeclahay aniga tigidka mar walba waad ii diidaa adigana ka waranba aniga hal tigid oo keliya ayaan kaa codsaday waan ku baryayaa isiino annaga haddii aan nahay wasiira wax walboo shacabkeen naga codsado waan u qabanaa maxaa yeele taas waa shaqadeenna ninkaan leeyahay shankar hadda mar walba asaga tikid ayuu iga codsadaa anigana waqtigan u helaa oo keliya ayaan siiyaa maxaan kaloo sameynaya adigana waqtigaaga iska sog teeda kale mar walba aan ku wacda markaad ii imaada lacag muu ku siiyaa mise ma ku siiyey waad isiisaa laakiin fiirhe lacagta wax walba ma noqoto waa ogtahay maaho ay hadda maxaa loo baahan yahay marka tigidkaa loo baahan yahay yaaqi tigidka iyo mustaqbalkeena inaan sameyno
مستقبل ميا أباي مستقبل ما هو هذا بك بلاوينا maalin maalmaha ka mid ah aniga iyo gabdhaha saaxiibtida guriga sujuud isugu imaanay adigu kuma talagelin maxaa loogu talageli waay sababtoo adiga weli ma aadan weynaan aniga cunuga rami waxa fiirsanaysan waan fiirsanayaa tartiib anaga fiirsanaya markii aad anaga nala joogto mar walba markaas aad fahmi kartaa waxaad ku hadaysaa soo maaha bis waa hooy idinku soo dacweynaa markaas arkaysaan hay way runtaan adiga halo hooyo haa gabadhaydii ku aawine qolka sanjuu ayaan joogaa qolka sanjuu ayaan ku jiraa ilaa xilligan maxaa hostelka ka qabanaysaa adiga inaan cunto isma rabto miya hooyo 2 daqiiqo kadib waa ku imaanayaa maanta dhan 2 daqiiqo la igu haysaa halo halo gabadhan markay arko sanjuu iyo saaxiibaha loo joogo inay ku mashquulsan tahay marwa qaaliye maxaa dhaca hostelka haddii uu xiran yahay taleefankan ma xirane meeqa saacadoodaan ku soo wicayna maxaa taleefanka nooga qaban weyse wasiirka hadda sanjuu u baahan yahay dhaqso u dir bal gabadha sanjuu waa daaliseen waqtigii waxaa la joogaa fasaxeeda iska dhaafa marka gabadhaas hadda sanjuu uma u baahnin baa naga waan daalina maaho caraf kaloo ka macaan meeshaan ka carfooya dhegayso arrintaan dhan beri ayaan xafiis kaga wada hadlaynaa hadda soo bax dhaqso marka gabadhaan soo gabadhi maaha oo xafladda joogtay qurux badanaa gabadhaada markuu wasiirka arkay wuu ina darandaraa ku dhah inaan soo tusiyo waayo maxaa kugu dhacay gabadha maxaa u diidaysaa shankar gabadhan gabadhaydi waaye waa ku barya afaarahana soo gelin iska dhaaf gabadhayda haddaa gabadhaada tahay in nolosha loo qurxiyo maa diiday marka wari ay dhegayso ninka dumaashigaaga u tag waxaana tidhahda intaas ka badan labalabadan ma qaadan karo in badan ayuu sanjuu suu doona ka yeeshay laakiin waxaad ogaataa aniga sirar badan inaan ninkaas ka hayo haddii aan ku talagalana 2 daqiiqo aniga iguma qaadanayso kursiga in aan ka rido oo dhulka la galo hadalkayga si fiican u fahan asagana si fiican u fahamsi ma fahantay socawray haddan horteeda ka leex baxa idoo leeda kaale hadda waxaad ilowday magacayga war waxaan ahay nin libaxsan ka taabta ninkaas wasiirkaana kursiga aniga dartaa ayuu uga fadhiyaa intaan adduunyada joogana cid taaban karta ama kursiga ka ridi karta ma jirto adigana haddaanba kuu dhammaynaya kow ayaan kaa siinaya gabadha faayo sanjuu hooyade waa la dilay hooyade shankar ayaa dilay hooyada waxay dhahaysa wasiirka sanjuu ayuu xiriir leeyahay ii sheeg adiga xiriir miyuu kula leeyahay sawirada iyo fiidiyoyaasha aawan ii sheeg aawa fiidiyowga ii sheeg fiidiyowga ayaa rabaa ii sheeg और संजू idinku waxaad aad u jeceshiin in aad sawir qaadataan soo maaha kaalihii sawira hore igada laga sawiray sawir qaadee dhaqsada qaata adiga dumaashiga tikid ayaaba ka rabtay soo maaha tikidka haddaaba lagu jaraa ka warnay laakiin tikidka adduunya maane kii aakhiran kuu jaraa والله جرا شنكر وعلى يا تادي استبده ولبا
maalinta soo saarka markii aan ka soo baxay hore ayaan ka suuxay markaas kadib wixii dhacana aniga maba ogi diyaar mutaa oo binaad qorto mudane adiga waxaad ka hadlaysay mesajyo video iyo sawirooyin waxyaabahaas markii qorka sanjuga aan soo galay waxaan weydiiyey arrimaha fiidiyowga iyadana waxay qarinaysay katiinka laakiin aniga ma ogi meesha ay ku qarisay katiin ah laakiin maxay tahay sababtay katiin ku qarinaysay ma ogi mudane laakiin iyada sawirada iyo fiidiyowga markasta falaash ayay ku shuba jirtay waa hubaan falaashka ayay filimkani waxaa lagu tarjumay astaan filmis waan wax walba falaashka ayay ugu jiraan katiinka ayaa falaash u ahaa mudane sidaas ayay wax u jiraan halo marwa meeshan xaaladeeda way sii adkaynaysaa annaga waxaan u baahannahay ciidamo gurmada inaad noo soo dirto okay waan iina soo diraya weliba aniga ayaa idiin imaanayo waayahay marwa okay waxyar kadib waxaa imaanaya wasiirkiinii sharafta lahaa intuu ka imaanaya waxaa idinka codsanaynaa inaad jawiga sii dejisaan ood qalbi wanaagsan ku sugtaan nyatadii waa salaaman tahay meeshaan aad u jeedaan idinka oo keliya ma joogtaan oo wasiirka taageeraya dad badan oo ka soo horjeedo oo wasiirkan horumarkiisa nacab ayaa joogo war faataa dhug baa haysa wasiirku wuxuu yahay war iska dhex saara iska dhex saara وريا وركل جوجا اسنافه يا اخي يا اخي دقاق جوجيه وركل احد ماشي وركل احد يا اخي وكان نقدا وريا نقل
haddii aad taageersantahay waad badbaadaysaa haddii aad annaga naga hor imaadana oo farahaagana ay dheeraadaan ogow annagana ciddey libax ayaan la soo baxaynaa पिया मोर निक से छुड़ा के मोसे हाँ मेरी माई रे माई मेरी माई रे माई रे मिलना मिलके बिछड़ना पीका वो मिलना मिलके बिछड़ना दो पल का बोसा दो पल का बोसा दो पल का हो गई दिल की माँ एरी माई रे माई रे एरी माई रे माई रे कासे कहूँ जिया की बात पिया मोर निक से हाँ पिया मोर निक से चुरा के मोसे हाँ एरी माई Rutra, adiga miya soo galba soo fariis saxiix ayaan kaa rabaa idhegaysa rutra ani waan ka xumaa dhimashada xaaskaaga balse taas macneeda maaha xaaskaaga hadday dhimatay inaad boolis ka ruqsaysatid xaaskaygii markii ay nooleed sharciga ayay u shaqaynaysay aniguna qaladkan gale wuxuu ahaa warkeeda markaan yeelay waxa aan raba inaan sameeyana anigoo dharka booliska xiran ma samayn karo seed u hadlaysaa adii ma adigoo ciidanaa sharciga ku tumanaya haa waan la socdaa adiga inaad garab isiin karin oo waxaad tahay qof khasban heer waxaad khasban tahay
ninka wasiirka ah safalitiga inaad kabihiisa ku tirto waatana warqadda waan kaa tegey istaag suumeekid inaa khalad weyn hadda gelaysid aniga haddaan istaago xayawaanadaas cid istaajin karta haba yaraatee ma jirto horay ayaa waxaa loo yidhi lax walba meesha isdhigto ayaa lagu gowracaa annagana mahmaayadaas ayaan la mid noqonnay war ilaa iyo intee annagoo dharkan sharafta leh oo ciidanka booliska wadan sharaftayna in wasiiro iyo wax aanan jirin ay ku tuntaan ilaa iyo goormee dharkan sharaftiisa lagu tumanayaa dharkan sharaf buu leeyahay annagana waxaa loo baahan yahay inaan sharaftiisa soo celino rodrog bartaabsin johan wixii kula gudboon sameey hadda fasaxad u tahay annaga dhanna garabkaaga ayaa nahay wixii kula gudboonaad samayn kartaa waa amar gaashaan la adiidii dhimashadeeda si sahlan inaan ku ilmaana lagama yaabo जवानी नाम है जिसका बड़ी कम वक्त आफत है छुपाना भी मुसीबत है दिखाना भी क़यामत है अरे माही माही रे अरे माही माही रे मायरे छेड़े हैं लोग का मायरे घूरे हैं लोग का मायरे ताड़े हैं लोग का ताना मारे हैं लोग का दैया बेरे भाई है ये लड़ाई रे ए बाची तेरा दिल ढल के बाची चल संभल संभल के बाची यहाँ मजनू दिल के बसना नहीं से मिल के वरना करती फिरेगी माय मायरे मायरे छेड़े हैं लोग मायरे घूरे हैं लोग सोलह तो गया है पीछे आया साल 17 हरिया जवानी पे चढ़ा है भारी खतरा रसिया हमारे रस के भौरे हैं सारे फंस गई मैं तो रामा घर के इशारे काहे लगाया तूने अखियों में कजरा काहे सजाया गोरी बालों में गजरा चोली पे टाके काहे सलमा सितारे इसलिए चोरे तो है चढ़ा लोग सारे मैं तो भूखी निगाहों से घबराई रे मायरे छेड़े हैं लोग मायरे घूरे हैं लोग
soo dhaweyn fiican ha loo sameeyo socda lafalafeesta eegan
waan ogahay maanta haddii aan ku dilo adidii iima soo laabanayso laakiin haddii aan ku daayo rudraa kale ayaa shalaynayo hore ayaan kugu sheegay waxaan ku yidhi xilligaad dhima lahayd lama gaarin laakiin maanta waxaa la gaaray xilligaad dhima lahayd kumana dhaafay filimkan waxaa lagu tarjumay astaan films وسلامتهين وسلامتهين بس رنتي عيد دشيرة ما معبسين شانا لا يهد قاشان لسراح كالبل نيجاتيف محيين وحان أطهرتين كنتين ورانا فيري ما قصنا حلكان هنا 10 سنة سيدان حلكان او ilaalinayni dhagaa xataa duf ayaan ku yeelanay waad u jeedaa anaga kharaan ba ayaan basdaxta waan cadaatay waad u jeedaa وريا دوع الحمو حاران اياتهاي مركز لين وزير ماشان كسو حريسا ورانيga boqortooyo ayaan nahay dawladana intaas sano ayaan soo hogaaminayay maantana adiga waxaad isku dayday anigoo wasiir ah in aad halkaan igu soo xirto ogow aniga aqoon iima lihid soo xasuuso xaaskaaga aad jecleed dambasteeda
haddii aad aniga afaarihii ka bixi weyso ogow iidoo kale ayaan kuu gubayaa aniga aqoon iima lihid waad igu dhumaysaa ha cabsanin aniga inaan ku dilo lagama yaabo shacabka ayaa cad jirkaaga u jarjaraayo shacabka ayaan kuu daynayaa adiga maxaa yeelay shacabka aniga aad iyo aad ayay ii jecel yihiin waay kaada intaa gacmaaga hartimaan ragma dhamid ma waryaa kalabiyo iga fur waryaa cari iga fur haddaa lagtaa iga fur waxaa taan ku tusaa mudana wasiir ma dhammaysatay ha ma intaanaa tabartaada wax kale ay dhama iga fur wax kale kuma harin khudbad kale kuma labna laakiin waxaad ilowsan tahay waqtigaad hadli jirtay inuu dhammaaday waxaa la gaaray waqtigaana aniga hadli lahaa waxaan ahay shacabkaad ka hadlaysay UBS ma taqaana micneheeda waa u shaqaynta shacabka nacasi ma waxaadna moodaa waardiyaha gurigaaga jooga markaadna leedahay kabahayga caseeya waryaa annaga shacibkaan ka imaanay shacibka ayaan u shaqaynaa bal fiiri shacabkaad ka hadlaysay arrimahaaga waxay ka leeyihiin nacsiyo aniga markii aalinta ka soo gala kadib waan suuxa xilligaas wixii ka dambeeyana waxba maanan xasuusan sidaas ayay wax u dhaceen marmarka qaar danta waxay kugu qasbaysaa sharciga iyo qaanuunka intaad ka soo horjeesato shacabka wax u qabo maanta haddii aan aniga ka soo horjeesan go'aan dhacaya ma jiro si go'aanku u dhaco waa inaan aniga ka soo horjeestaa soo istaag bastriyo soo istaag haddaa waxaad dhehaysa فيلم كاني waxaa lagu tarjumay astaan filmis